madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shir jirayd ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay xaaladaha dhanka nolosha ee haatan ka jira deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo gaar ahaan jubbooyinkii gobolka Gedo. Axmed Madoobe ayaa shaaca ka qaaday in abaar iyo xanuuno aan la garanaynin ay ka dillaaceen qaybo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland loona baahan yahay in si degdeg ah loogu gurmado dadkaasi. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in abaaraha iyo xanuunadaasi ay haatan dhibaato ba'an ku hayaan dhaqatada iyo beeralayda ku dhaqan deegaanada hoostaga Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka gurmad degdeg ah inay la soo gaaraan dadka shacabka ee ku dhibaataysan halkaasi. Ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaallo xooggan oo lagu samata bixinayo dadka dhibaataysan si gurmad iyo caawinaad ay u helaan. Hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay qayladaan ay ka soo yeeraysay dadka ku dhaqan Jubbaland oo haatan wajahaya xaalado bini'aadanimo. Samiir Cabdirasaaq Umar, wararka muuqaal baahiyaha SBTV magaalada caasimadda Muqdisho.